السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي meel ku aad joogtaan iyo si walba idin maqlaysaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta maanta waxaa mawduuca ahay mawduucii horta waxaa dib usoo laabtay oo ka hadla aan rabay mawduucii Morocco iyo guurkii iyo arrimahaas ku saabsanahay oo aan maanta social media marka aan galay dib u arkay كل موضوع عن دبر دير هذا أمرنا إنه قطي أبارت دبر دير ما غلي جرا لكن هذا حواي موضوع عن دبر دير هذا مركلنا السيم بوينتي إذا ضدك معنا مشكلة واحد دي موضوع مثلا موضوع قابك ضدك لو ذي أم فرين تنوع مركورة هاد انت لبو بدل بتاعتا ننعك لو بدلو aad ay u dhib badan tahay oo wixii mafhuumkii qofka dadka weyne fahamkii uusan jirin aad ay u dhib badan tahay mawduucaas aniga waxaan ku arkay dadka inay si qaldan u fahmeen hadda mar maanta social media aan daawana waxaan ku arkay gabar iyo hooyadeed ama maamo iyo gabadheeda aan dhaho waxaan ku arkay dhehayso gabadheyda maaragtay maxaa lahayay nin alle ninkii iga soo doonto waxaan iskugu daraa baabuurna waa siinaa lacagna waa siinaa saana u yeelaa kanaa yeelaa baabuur anaa u gadaa guri anaa u dhisaa haddana lacagtaas ayaa iga diyaar ah ninkii aniga iga soo raadsaday dhibaatada jirta xawar soomaalidii amba nimanka raggaayo faaraxayaasha ahay ma aysan waynin waxay ku guursadaane meherkan intuu ahaado iyo arooska intuu noqdaba asiga iyo gabadha kulley ku heshiinayaan wixii lagu heshiinaya laakiin mas'alada waxay ka taagan tahay yacni dhaqanka waxaa arkaysaa horta waddankii ma uusi jirto waxaan arkay aniga rag badan iyo dumar badan maslaxadooda ma yaqaanaan inta aan la isguursanin ka hor waa la isla haasaabaa waa la isla boodboodaa inta waa la isjecel yahay waa la isku sabraa waa la isku dhimrinaa waa la isku cudurdaaraa laakiin markii la isguursado oo ilmo la kala helo qof walba seefuu la boodaa ama dhanka gabadha ha ahaato ama dhanka wiilka ha ahaato anima kala qaadayo ma dhahayo kana u danayna ama kanaan garabkiisa ma dhahayo laakiin waxaa arkay aniga inuusan sabar jirin inuusan sabar jirin dhaqan uusan jirin oo dhaqanka adag yahay weliba xilligan la joogo oo yacni boqol daraf inuusan maanta waxaa aaminsanaha meel loo baxo aysan jirin meelba dhibaatooyin naga haystaan meel duleel ma jiro ama meel bilbaab ma jiro waa nala wada taagan yahay sababtaas ilaahi waxaa waaye waxaa la daala dhacaynaa maxaa lahaay 30 sano oo dagaale ah 30 sano oo jahli ah 30 sano oo maaragtay waalid la-aan dadka qaarkood gaajo dhibaatooyin meel baa nala taagan yahay duleel ma jiraan ku leeyahay ilaa waa nala taagan yahay ilbaab ma jiro ilaa waa nala taagan yahay يعني dhibaatooyinka farqooyinka laga wada dadka hadda halka ay dadka hormaray مثلا dadka hormaray oo wax qabsaday adduunka oo aan leenahay dhibaatooyinka anaga marka loo fiiriyo waxaa laga yaabaa inay meelo badan uga fiican yihiin laga yaabaa maanta in hal dhinac laga helo halkaas dhinac ama iyo gudahooda iska xali karaan ama laga xali karo laakiin anaga maanta haddii inta nagala xaliyo beri intaa kasoo baxeen inta godkaan nagala baxay godkaan nagala taagan yahay inta nagala taagan yahay يعني dhibaatooyinkeena ma la soo koobi karo nabad ma haysan dhaqaale nagu filan ma haysan badankeen aqoon nagu filan ma haysan oo maaragtay wax iskuulina wada geenaya male waxaan aaminsanahay aniga maanta waxaan aaminsanahay wiilka ama gabadha hooyadeed iyo aabbaheed haysato nasiibay leedahay gabadha iyo ma wiilka haysto hooyo iyo aabbo iyo awoowe iyo ayeeyo waa nasiib badan yahay wiilka ama gabadha haysato hooyo iyo aabbo iyo ayeeyo iyo awoowe iyo abti iyo adeer iyo eedo iyo
habaryar haysato waa naga nasiib badanta aaminsana qofkaas aada macnaha u nasiib badan yahay waxaa rabtidna aqri waa yar tahay boqolkiina waxaa aaminsana maanta haddii daraasaad la sameeyo oo lasoo baaro soomaalida dhammaantood amba research lasoo sameeyo boqolkiiba 0.01 in laga soo helayo gabar ama wiil hooyadeed aabaheed eeyayadeed awoowaheed awoowihii aabba dhale awoowihii hooyo dhashay eedooyinkeed habaryaasheed abtiyaasheed adeeryaasheed walaalaheed isku haysato ama isku haysto in laga soo helayo waxaa aaminsanahay boqolkiiba 0.01 inay tahay because waxaa dagaalo 30 sanana baabi'iyey qofkii hooyo haysta aabba ma haysto qofkii aabba haysto hooyo ma haysto qofka hooyo aabba haysto eeyii awow ma haysto qofkii ayey haysto aabbii hooyo ma haysto adeero qofka haysto habaryar ma haysto halka adduunka aysan saas ahayn ka duwan tahay laga yaabo qofka inuu ayeeyadiis amba awoowihii saddexaad inuu arko oo weli waqti la qaato la sheekaysto asoo dhalinyaraya anaga ma haysano xasiloona ma haysano beri maxaa kusoo kacaynaa caawase kusoo nabad kacaa beri se usoo laabana hooyadaa ma soo laaban doontaa aabbaha ma soo laaban doonaa waalkaa ma soo laaban doonaa abtigaa ma soo laaban doonaa nabadaas ma haysano jabka rootiga nabada inta ku cunno ku seexana ma haysano cudurro waa noo dheeryihiin waana daashadeen isbitaalada waa aragtay tiraada badan laga furto magaalada oo aan qofna lagu badbaadinin markii lacagta lagaa miirta waxaa lagu dhahaa waxba makuu qaban karo oo markaa maxay qaabilaysa mafahant dhibaatooyin aada u fara badan haysto maskaxiyan aqoona isku celin mahayno waalidiinteena soomaali boqolkiiba boqol waxaa la jira islaam waa iskaga daba imaado waa isku dhamaatay diinta inta qur-aanka yani fahansan lama rabo xafidsan lama rabo dameer malab saaran lama rabo boqolaal dameer malab saaran isbaarooyinka u taali jirtay ilaa hadda yani aysan ogeyn waxa ay xifdisan yihiin qur-aanka aysan aqoonin micnihiisa iyadoo aayaddu akrinaya ay tahay aayad laga yaabo inay ka reebeyso munkarka iyo dilka iyo aayad ka hadlayso inuu ka hadlayo inuu matalan xifdisan yahay walfitnatu ashaddu min alqatli laakiin micnaheeda uusan fahansaneyn maalin walba qof dulminayo maalin walba qofku ku dhegan yahay guryadooda dad ku haysanaa maxaa lahaa ganacsigooda dad ku haysanaa qof iska socdaa dulminaynaa qof iska ladanaa dulminaynaa yani qof walba positionka oo haysto oo madaxda ka yahay ama mas-uulka uu ka yahay aan ku dulminaynaa suuqyaashaad ku dulminaynaa raashinka iyo suuqa iyo ganacsigaad ku dulminaynaa oo wixii xunaad ka siinaynaa dhibaatooyin fara badan aan haysto aan kasoo laabta meeshaas waa fogaane aada u fogaane aan soo laabano anigu intaasoo dhibaatooyin la haystaan intaasoo mashaakil la haystaan maca daalika maanta ma haysano gabdho ama wiilal lagu badbaadi karo markii guri laga yimaado lama rabo jaceylka aada ugu fiicana maalin dhaxaas ama ka arkayay sanadkii 2012 meed mise 11 meelaas inay ahayd umaleyna daraasaad la sameeyey oo africa loo sameeyey best romantic man africa soomaaliya noqda taas ma idinku haysto misku haysan xagga noo dhig kaas haddoo xumaado haddoo fiicnaado jecel haddoo xumaado haddoo fiicnaado waxaa waaye wax dhibaato ma kuu geysan horadaada u soconaysaa laakiin dhibaatada keena waxaa waaye ama dhibaatada ay ka imaanaysa dhibaatada leeda waxaa waaye markii la gursado oo dhaqan la iskugu yimaado ama ilmo la kala dhalo oo aanan waalid na soo dhexgalayo ama culamo na soo dhexgalaysa aysan jirin ilaa laysku baaba'o
ولا كلا تجا وحا كيسا gabadhan 2 bil ka hor la guursaday waa lasoo furay bil ka hor la guursaday isbuuca la furay kuwa habeenkii la guursaday lasoo furay dhaqan xumo dabeecad xumo maaragtay oo dhan walba maahan gabdhaha maa keliya waxaa eedahay dhan walba ka imaanayso raggana ka imaanayso dumarkana ka imaanayso faham marka mawduuca sida loo fahmay odayaal maamadaas markaa arkay waxaan arkoo kale odayaal meel iskugu yimaadeen oo dhahayaan go-aan waxaa lagu gaaray arooska baabuurka xalfadda shoppingkeeda waxeeda gabadha $1 ma laga badi karo adiga amri maata adiga yaa ka aqbalaya waxaas faham xukunkaas aaride aroos maanta caawa wuxuu dhacayaa aroos 10,000 lagu dhigay beriya waxaa dhacaya mid 20,000 lagu dhigay aawa adiga wixii aasha meeshas wax ma jiraan adeeryaal waxaas iyo awowyaal meeshas ma jiraan meesha u socotiin maahane waxaa maqli jiray markaan cadan ka heeso waxaa ka heesaa heestii maxay ahayd markaan meeshas ka heesa inta ka heesa yani magaalo hebel markaan ka heeso asina magaalo hebel ka heesa sheekada saas waa marka arooska baabuurta lagu qaadahayo waxaa la yiri ugu badnaan waxay noqonayaan 2 gaari bas lambar 2 sooriyada xaragada iyo arooska lacagta la bixinayo lagama badin karo $1 ayada ayaa isku noqonaysa wixii dhan hadii aroos ahaan lahayd hadii xaraga ahaan lahayd dhamaan wixii dhan $1,000 ayaa lagu saleeyay markii la falaqeeyay go'aanka soo baxay wuxuu noqday lacagtaas aan laga badin karin $1 adeeryaal iyo awowyaal sheekadu waxay taagan tahay in gabdhihii iyo wiilashii xal loo keeno sidee la iskugu dhaqi karaa sidee iskugu dulqaadan karaan waxaa imaan karto dhan dhaqaala imaan karo dhib dhaqaala imaan karo dhan xanuuna imaan karo isfaham waaya imaan karo labada qof ka mida inuusan wax fahansaneyn oo diinta fahansaneyn sharciga fahansaneyn waajibka saaran fahansaneyn labada qof mid ka mida aa dhici karto intaas sida xalkii intaas la iska rabaa xalki maahan in la dhaho anaa lacag bixinaya gabadheydii aan guursanaya iyo baabuuraan bixina maahan yani $100 keer maanta dii laga dhigo wax weyn maaha laakiin waxaa mushkilada taagan tahay yani labadan qof sidee la iskugu hayan karaa waxaa aniga nadartu dhahay oo igu wallaahi igu bilaahi igu talaahi waxaa aniga nadartu dhahay oo aan arkay oo aan aqaanaa waalidiin dhahayo furiinka talinayo waalidiin wallaahi oo bilaahi oo talaahi waalidiin in furitaan u dhaco inuu furiin dhaco ka talinayo oo gabdhaha iyo wiilasha intaba ama hooyo gabar ha ahaato ama hooyo maaragtay wiil ha ahaato ama aabbo wiil ha ahaado ama aabbo gabar ha ahaado oo furiin ka talinayo dhahayaan hala ii furo nadartu anoo dhahay oo aqar la iisoo fariisanaa marka dadkan waxaa rabaa dadka isku haya lahaa dadka kala geylaha lama rabo ma fahanteen bilcagsi hadda markii oo ani fikrad waxaan qabaa markii dhalinyarada loo fududeeyo lacagta ay ku guursan lahaayeen mid tan fura ka tagaa mid tan guursan ka tagaa tan kale raqiis oo wax laakiin hadda carabaha kale fiiri marka aragtid gurka aad u adag yahay dadka aragteen sacuudiyaanka qaar yaa kaanti badan imaaraadka qaar ka mid ah inta baxaa marooka aadaan soo guursadaan sababta mataqaanaa gabadhan aad qaali u tahay waxaa nadartu soo dhacani nin carbeed oo naag carbeed qabo oo naagta aad u dhib badan tahay oo dhahay ma furi kari haddii aan furo ma furi kari oo sababta maxaa waay tan lacagta aan ku guursadaan weli gudooyaa tan lacagtii aan ku furay aan weli gudooyaa soo tan inta iska furo mid kale haddana deen kale ma geli karo oo taageertiyada iska heesanaa marka cagsiga hadhow dhacayso haddii gabadhii la raqiisiyo fur ka tag ahaa ayaa mas-uuliyadda qaadaya marka atleast marka lagu adkeeyo oo tan xoogaa ka baxdo haba xumaatee waa iska heesana inuu quruxsado isku daya laakiin haddee wixii dhan $1,000 keer ee tahay isbuuca mid tijaabi isbuuc kale mid tijaabi aha marka bishaa mid tijaabi bish kale mid tijaabi sanadkaa mid tijaabi sanadkaa mid kale mid tijaabi aha adeeryaal oo awyaal waxaa kusii ciyaaraysiin asla yani fikrad ahaan
أنا كلية ساقبة ودتك إلا قوي جيران ودعك وركا لكن حتى حلك إن لكانوا إن labadan qof isguursaday in la isku dhaqo in la isku haayo waxa ogahay aniga aqaana familo badan oo aan familo badan oo isku haayaan waalidka isku haayaan qof walba waalidka madaxiisa u sabraa fahad familo badan oo waalidka madaxiisa u sabraya waxaa jirto inuu cumar bin khataab yaa umaleyna oo leeyahay guri walbo ya guri walbo kuma dhisna jacayl saxaabada kamid a usoo dacwoodeen markaasay dhahani qofkan ma jeclaan qofkan sama ليس كل البيوت تبنى على الحب أو على العشق يعني قولي والبموكو اسمه جعل مكو اسمه ما فهمتين قولي والبكو ما اسمه جعلكم ما اسمه وإلا اسكو صبرا dhibaatooyin fara badan qofkan marka guur kadib dabeecadaada ku aqoon fara badan soo baxay runtaa la imaanaa sagxadaa lasoo taabanaa xilliga sabarka iyo jacaylka loo baahan yahay qofka inuu qofkan u naxariisto qofka inuu qofkan u dhimrado qofka inuu qofkan meesha uu ku adag yahay oo ka liitay inuu ka adkeeyo ma ahan in dacas la isaaro ma ahan wax yar markay dhacaan in macnaha dacas la iskula qabto ya baashaan unimaatay aan lahaa فيديو كلية لو صارت لي مرة بوعدها هذه في عن تهاي عذر بضن إداو تهاي كستو قاري تهاي فيديو قاسة كلية لو صارت لي واستعمال كرتين هذه في عن تهاي عفماتك عرب الله يعني أنا شاكدا سيوضن يعني نقصد أحقلين برنامج كله شاحي قلوا وطائية وديار سنة شاكدا أنا أوصو قلب قاتة معنا شاكدا أو معنا الفلين ولين لغة اسكت مربعين على له هيسا تا صعبة مركب كل سوشيال ميديا حفريا محاول قفل بينه رأيي سوديتو وح اكسبيرينس وقت ماشي وح كأركايو ما لكن إن البوزيتيف وي عن الحواركم وأنا كنت على إن فكرة يعني أنا دفعها سوجي فكري وأسوح وأركوا وأنا كنت معنت أضياش معنت فكرة سوجي دي أنا إن بالكر قيسي زوجي إن بري يعني إن فكرة إن توستو يعني ما جرت الله يعني فكرة دي بس صح سن حلقات ما جرت حالي كنت مدة على كسر جدي إن توستو إلهي معناه وافجنت إنه إلهي كليم بعدين لكن وحدتك تكون راعان عمرك الله والله حول الله أضياش الله مليرة هذا قفل بحر شيء dadka waa arkaya wixii xoogaa oo macquul ah logic oo la qaadan karo fahad marka mawduucaas muhiim in intaas uu ka hadla rabay waana ka hadlay mar inuu kusii fogaado waxyaabo badan oo qodqoday oo sheega waa jira mar inuu kusii fogaado hadana waxyaabo kale ka arkan insha Allah kasoo hadli doona intaas aan kusoo gabagabeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh